waxaa habeenkii xalay toolahayd u teelay City Center ee magaalada Hargeysa lagu soo gabagabeeyay tartanka Qur'aanka Kariimka oo loogu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan. Tartankaas ayaa waxaa soo qaybiyay Maktabatu Al-Jazeera ee ka dhisan caasimadda Hargeysa, kuwaas oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 8 madrasadood oo lagu barto culuumta diiniga. Kulankaas ayaa waxaa go'ayn ka hadlay Sheekh Maxamuud Nuur Cilmi oo isagu ku hadlayay afka garsoorayaashii tartankaasi waday, isagu ka waramay guud ahaanba waxyaabihii ay kala soo kulmeen ardaydaasi, kaasi oo si ballaaran ugu ammaanay Maktabatu Al-Jazeera. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa maktabadaas oo runtii waxa weeyaan aad iyo aad u dadaashay oo isku dayday inay bilmadaariska dugsiga hoose dhexe ee luqada carabiga ku dhigta ee magaalada Hargeysa ku yaala inay tartan ay u qabtaan oo ay ardayda waxa weeyaan ay iskugu yeedhaan si markay u dhiirigeliyaan ardayduna marka waxa weeyaan madaariska ka soo qayb galay tartankaasi waxay ahaayeen 8 madrasadood ayaa ka soo qayb galay. waxaa ka mid ah marka madaariskaasi madrasatu Al-Furqaan iyo madrasatu Umar ibn Khattab iyo madrasatu Tawxiid iyo madrasatu Hargeysa iyo madrasatu Al-Bayaan iyo markas Al-Imaaraat iyo madrasatu Bulsho iyo madrasatu Al-Qudus. 8 madrasadood ayaa tartanka u dhaxeeyay. finalkii waxa isugu yimid oo maalintii ugu dambeysay aan u qabanay madrasada loo yaqaano Al-Furqaan iyo madrasada Umar ibn Khattab. waxaa kaloo iyaguna kulankaasi ka hadlay qaar ka mid ah maamulayaashii ay ardadoodu uga qayb galeen tartanka Qur'aanka Kariimka ay soo qaybqaabisay Maktabatu Al-Jazeera. ugu dambeyn waxaa kulankaasi soo gabagabeeyay Sheekh Jaamac oo ku hadlayay afka Maktabatu Al-Jazeera oo isagu ka waramay waxyaabaha ku kalifay in ay soo aasaasaan tartankan Qur'aanka Kariimka. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa qolo waxay ka adeegtaa maxaan bulshada uga adeegtaa xagga dictionary-ga sidoo kale stationery-gi waxaa qolo ka adeegtaa maxaan alaabooyinkii kale sida ismihii guryaha la dhisay meel baa lagu tagaa haddii cid caroosanayso oo dee alaabtii laga soo gadaa meel baa lagu tagaa, haddii cid raashin cid kasoo qaadayso meel baa lagu tagaa. maktabadii raashin laga doonan maayo. marka anagu waxaan nidhi dadka anagu aan u shaqayno ee aan u hayno serviceka faraha badan ee dhinaca kala daawanaya. gabagabadiina waxaa bartaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalinta koobaad iyo kaalinta labaad ka galay tartankaasi Qur'aanka Kariimka. haddaba Maktabatu Al-Jazeera ayaa iyadu noqonaysa maktabada ugu horeysa ee bisha barakeysan ee Ramadaan soo qabanqaabisay Qur'aanka Kariimka. waa Nagiib Cabdilaahi, telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV, magaalada Hargeysa.